salaamu ullaahi calaykum dhammaantiin bajana galayaal soo dhowaada mar kale haddii aynu halkeeni kasii wadano muuqaaladeennii taxanaha ahaa ee koorsadeenna qeybta training planka ah aynu kaga hadlaynay muuqaalkan waxaynu rabnaa inaynu kaga hadalno qeybta loo yaqaano training routineka dabcan haddaan muuqaaladii hore soo daawatay waxaan si deeply uga soo hadalnay trade managementiga oo laba qaybood oo weyn u kala saarnay oo kala ahaa money management iyo trading goals and risk management iminka videogan waxaan doonaynaa inaynu kaga hadalno wax loo yaqaano trading routine dabcan trading routine-ku wuxuu dhammaystirayaa saddexagalka guusha oo qofku u baahan yahay saddexagalka uu qofku u baahan yahay si uu suuqan guusha uga gaaro oo waxaynu ognahay qofku markood inuu u baahan yahay trading strategy inuu ka soo hadalnay videoyo badan oo ilaa 12 video ka duubnay kadibna qofku u baahan yahay trade management oo qayb weyn ka ah tradingka oo ah hadafyadii riskigii everything midda ugu dambeysana waxa weeye trading routine-kiyo in qofkii la maamulo oo jadwalkiisii la maamulo haddaynu ku socono marka qaybteennan training routine-ka waxaan u kala saaraynaa ilaa 4 qaybood ayaanu si kala saaraynaa marka trading routine la yiraahdo waa qaybta koowaad aynu kaga hadli doono wax loo yaqaano morning routine oo aan doonayno qofka inaan u yeelno caadooyin iyo rituals si wax walba qofku uu sameeyo haddii la trade garanayo iyo haddii aan la trade garaynba caadooyinkaas oo kuu fududaynaya inaad noqoto qof trader oo suuqan guul ka gaara markaynu kuwan isla eegno haddana waxaynu isla eegi doonaa trading time ama jadwalka shaqada xilliyada kala duwan ee suuqan fursadaha laga raadin karo inagoo tusaalayaal dhowr ah iyo scenaariyooyin dhowr soo qaadanayna kadib waxaynu isla fiirinaynaa wax loo yaqaano trading journal oo ah marka aad shaqada ku jirtid oo aad joogtid wejigan ah trading timekaaga markaad joogtid oo jadwalka shaqada aad ku jirtid maxay ayaa la qorayaa oo trading journalka lagu update garanaya iyo mid ugu dambeysa oo ah evening routine oo isagu 15 daqiiqo aan ka badnayn oo ah caado yar oo qurux badan oo maalinta lagu qatimo oo iyadana aan talooyin iyo afkaar idin ka siin doono dabcan markan isku dubaridayay trading routine-ka runtii dhib badan baan ka maray sababtoo waxyaalahan trading planka oo dhanba waa talooyin iyo afkaar talo iyo afkaar markaa qofku ku wareejinaysidna waxa ugu muhiimsan wax weeye inaad qofka talada u siisid qaab uu ficil u bedeli karo inta aanan videogan duubin trading routine-ka 12 qaab baan iskugu dayay inaan u sameeyo mar walbana waxaan u socday waxay ahayd in wax aad kala dhex bixi kartaan oo isla biriba aad maalintiina ku dabaqi kartaan inaan idinka diyaariyo marka afartan qodob ayaan isku dayi doonaa mid walba inaynu gaarkeeda dul istaagno haddaan ku horumarno trading routine-ka ama waxa loo yaqaano morning routine-ka waxaan rabnaa inaan 3 qodob oo waaweyn inaan u kala saarno morning routine-ka waxaa kaaga bixi karta gebigaagaba 10 waxaan leenahay 1 saac ilaa 2 saac oo kale maalintaada 1 hour ilaa 2 hour oo aroortiya ayaa ku bixi karta gebigiisaba so dadka full time traderska ah haddii aad 4 soo kici kartaa 2 hours meeshan waa gelin kartaa morning routine-ka dadka oo waxa weeye part time traderska ah oo waqtigu ku adag yahayna 45 daqiiqo ilaa 1 hour baa ku filan marka morning routine-ka 3 xiyaalado weyn baa la rabaa inay ku jirto qor oo qorshee maalintaada waa qaybta koowaad waxaa laga doonayaa subaxdii marka aad soo kacdid oo dabcan waajibaadkaaga gudatid salaada wax soo tukatid kafeegaaga soo cabtid inaad buugi qalin soo qabsatid deetana 20 ilaa 15 daqiiqo aad qortid jadwalkaaga maalintaada oo dhan 24 saac qor arrin weyn oo sidaa meeshan ku jirta waxa la diidayaa in wax la yiraahdo maalintu ay ku maamusho waxa la doonayaa bedelkeedina adigu maalinta maamushid lama doonayo inay maalinta ku maamusho sidaas daraadeed wax kasta oo aad filaysid inaad maanta ka ballansan tahay ama ku qorshaysan yaysan ku soo marin maalin noloshaada kamid ah aadan qorin haddii ay ku balansan tahay maanta inaad adeeg doontid adeeg xataa qor haddii ay ku balansan tahay inaad meelaha hawl ka soo qabatid saacadaha ay ku beegan tahay sii qor waxay ku diyaarinaysaa inaad noqoto qof trader oo suuqan hadhow guul ka gaara waxyaalaha kale rabo inaad qorto waxaa ka mid ah qor ugu yaraan 3 hadaf oo maalintaada la xaqiijin karo 3 hadaf oo yaryar bay noqon karaan waxaa ka mid noqon karaa inaad qasaalada maanta buukimatid ama dhar dhaqatid waxaa ka mid noqon karaa hadafyadan inaad maanta shopping soo gadatid waxaa ka mid noqon karaa hadafyadan qof bukaan inaad soo booqatid hadafyo kooban oo maalintaas ku eeg oo caawa markii la gaaro aad dhihi kartid hadafkii yar ka ahayo maanta aan qoray guulbu ku dhammaada arrintaana waxay ku diyaarinaysaa hadafyada waaweyn oo tradingka inaad hadhow aadan ka baqin maxaa la rabaa dib u qor oo ku celceli hadafyadaada waaweyn ee noloshaada video gaar ayaan personal development ka samayn doonaa oo training routine-ka waan ka dhex saarnay sababta waxaan rabaa inaan idin sharaxo qaababka loo dhisto hadafyo nololeedka waaweyn ilaa 4-5 qaybood oo waaweyn ayaa nolosha hadafyadeeda loo dejiyaa marka qofku waxa uu leeyahay hadafyo waaweyn wuxuu noqon karaa hadaf lacageed wuxuu noqon karaa hadaf caafimaad oo dad jimicsi waxa ku jirtid wuxuu noqon karaa hadaf maxaan ku iraahdaayay mustaqbal waxa uu yahay hadafyadaada waaweyn isxasuusi subax walba it takes 3 minutes meesha ay ku qoran yihiin imow ku celceli
okay qor 5 wax aad haysatid oo aad ka mahad celinaysid meeshan waxa loo yaqaanaa affirmations ayaa la yiraahdaa labadanba affirmations bay soo iskalayaan inaad hadafyadaada dib ugu celcelisid inaad waxyaalaha already haysatid aad ka mahad celisid inaad caafimaad ka mahad celisid inaad nimcooyinka ilaahay ee kugu hareeraysan 5 subax walba 5 cusub macnaha xus hadaa shalay xustay waxa la yiraahdo in cuntada iyo hurdada iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo salaada iyo islaamtinimada hadaa xustay biri 5 kala xus maalin kale 5 kala xus subax walba adigu waxa caado ka dhigataa waxaba yaraatee buugga aad wax ku qoraysidna gadan kartid ka mahad celi dad badan ba arrimaha sakhirtay waxa dhow markii ciladooda fahmi waayeen halkan dib ugu noqdeen ciladooda oo dhan soo helay marka qodob koowaad ee morning routine-kaaga la rabay inaad sameyso waxa weeye waa qor oo qorshee maalintaada qor waxyaalaha la qorqorayo ayay ku saabsantahay it can take 20 to 15 minutes then qodobka labaad waxa weeye akhri wax kugu cusub soo walba waxa loo baahan yahay waxyaalo kugu cusub in akhrisid soo walba 20 ilaa 30 daqiiqo wax akhri waxba ka dhimayso okay 20 ilaa 30 daqiiqo wax akhri luuqad aad si fiican u fahmaysidna wax ku akhri oo iska ilaali inaad challenge kugu noqdo akhrisku lama rabo akhrisku inuu challenge kugu noqdo haddii af ingiriisku uu kugu adag yahay buugaag Soomaaliya raadi oo kugu cusub oo sheekooyina oo dhiirigelina oo waxyaalo kala duwan ka hadlaya akhri buug iyo maqaalo fikrado cusub kugu kordhin kara marka aad akhrinaysid waxa la rabaa wax inaad kala dhaxbaxaysid waxaad akhrinaysid qodobka ugu dambeeyana waxa weeye fikradaha cusub ee aad akhrisid noloshaada hal laga dhex arko hadaa maanta akhrisid buugga Think and Grow Rich ama buugaagta la midka ah oo kale hadaad akhrisid oo idea chapterka ku saabsan saaka aad fahamtay maalinta wixii ka dambeeyay noloshaada waa in ideyada laga dhex arkaa hadii aysan ahayn idea aqoonteena iyo diinteena ka hor imaanaysa qodobka saddexaad ee morning routine la sameeyay waxa weeye jimicsi joogto ah inaad sameysid jimicsiga laga hadlayo meeshani ma ahan in qofku uu gym-ka aado maxaa u baahan tahay 15 ilaa 20 daqiiqo subax walba ah jimicsi samee guriga dhexdiisa qolkaaga hurdada ama hadii qolka dadka la hurdaan jikada imo fadhiga imo deerka imo banaanka imo 15 ilaa 20 daqiiqo waxyaalaha ugu fudud aad sameyn karto waxa kamid ah xarig bood oo kale xarig dheer inta soo geeyay xarig bood tijaabi bush up sameyn kartaa 15 xabba sababtoo jimicsiga laga hadlayo ee morning routine ku jira maahan kii gym-ta la aadayay hadaa gym-ar tahay oo gym-ta sidaada u jeceshahay saacad caadi oo maalintaada kamid ah gym-ta u qorshee ilaa waa safar guriga laga baxaya boorsa la qaadanaya gym-ba la aadaya waa mowduuc kale way jimicsiga halkan laga hadlayo waa mid ujeedka laga leeyahay waa mid horta la rabo guriga dhexdiisa in lagu sameeyo ujeedka laga leeyahayna waa inaad aroortaada dhidid ku bilaabatid adoo dhididay oo marka qofku dhidido hormones iyo soo saaraya waxyaalo ka caawinaya maalinta inteeda kale inuu qofkaasi maamulo marka morning routine markaynu ka hadlano saddexdan qodob ayaynu ku soo koobnay qor oo qorshee maalintaada wax akhri wax kugu cusub maalin walba jimicsi joogto ah samee haddii aadan sameyn jirin waxaan 45 daqiiqo ahaatee sida rabtid BCO oo joogtay sababtoo dadka suuqan guusha ka gaaray dadka nolosha guusha ka gaaray businessyada ugu weyn dadka maamula ganacsiyada ugu weyn dadka lacagta ka sameeyay kulli way leeyihiin wax un sidaan u eeg oo waxa la diiday waxa weeye sariirtii aad seexatay adoo jiifay inaad trade ka sheekaysid ma noqonayso business markaa wixii hobby buu ka noqonaya hobbyga social media kullu wixii ka noqonaya inuu social media ka noqdo lama rabo waxa la rabaa suuqdii markaa soo kacdid diyaar garow baa wata dagaalka ugu horeeya wuxuu bilowdaa adoo aan diyaar ahayn dagaalka ugu horeeya ee maalinteenu adigoo aan diyaarba ahayn ayuu bilowdaa oo waa dagaalkan aan hadda ka sheekeynayno ina SL iyo TB iyo walwal iyo halkaas hadhow aadan ba gaarinba war aroortii horta maalintaada halkeeda saac ugu horeeya ma ayada ku maamulaysa mise adaa maamulay oo dad badan ba waxa dhici karta halka saac maalintooda ugu horeysay in iyagu maamulayaan sidee macnaha saacadu ay maamulayso oo sidee maamulaysa message baa qof soo diray message-kaas buu akhriyay asagoo indhaha kala qaadin hawshii sii galay qofku wuxuu u sheegay uu sii dhaxgalay buuqu sii galay 2 saac subaxnimo iyadoo la marayo arkay waxba uusan diyaarsan waxba uusan qoran meeshii la rabay horta intaanan adduunka soo dhexgelin oo social media masjida iyo yaala fariimaha dadka guriga la jooga buuqood waxa dhan inta aanan gelin waa inaan 1 hour naftayda u helaa oo naftayda aan kor u qaadayo kor u kordhinayo sababtoo sirta weyn ee morning routine ku jirta waxa weeye in qofkii adigu aad ahayd la doonayo in la koriyo waxa jira duruufo iyo xaalado nolosheena ku hareeraysan maanta waxa laga yaabaa 5 sano la soo dhaafay waxaad ku mashquulsanayd ama noloshaada ku dhex jiray 5 sano soo socotay inaad ku dhex jirin salaam waxa laga yaabaa 5 sano soo dhaafay inaad arday ahayd inaad jaamacad aadaysay sidoo kale inaad xaafadda hawla ka caawinaysay dad xanuunsan inaad haysay 5 sano soo socotay waxa laga yaabaa inaad shaqo aadaysay meesha jaamacad aadi jirtay inaad dadkii xanuunsanaa caafimaadeen in guriga joogtay guri ahayn joogtay in magaaladii magaalo ahayn joogtay macnaha waxyaalahaas dhacaya waa situations ama waa xaaladuhu noloshaadii maaha
qofkii adigu aad ahayd ee shakhsiga ahaa weli waa isagii xaaladihii unbaa isu kaa badbedelaya marka dad badan waxaa dhacda marba xaaladda uu ku jiro inuu ismoodo inuu isagu yahay no xaaladaha aad ku jirtid hadaa maanta business ku jirtid hadaa beri businesskii uu xumaado hawl kale ku jirtid waxaa loo yaqaanaa waxaas waa circumstances ama duruufo nololeed weeye kuwa fiican iyo kuwa xun yihiinba ee qofkii adigu aad ahayd ma tihid marka qofkii adigu aad ahayd iyo duruufuhu isma laha waxaa la rabaa 1 hour kan subax walba ah in aad qofkii adigu aad ahayd aadan ilaawin oo aad dhistid marka qaybta trading routine-ka ee aan ugu talagalnay morning routine-ku sirta iyo nuxurka ku jira waa intaas in subaxdaada aad ku guuleysatid marka trading routine laga hadlayo 1 hour-ka ugu horeeya ee trading routine-kaagu kumaba saabsanaba trade iyo forex arrin ka baxsan ayuu ku saabsan yahay ana hope in haddii aadan hore u samayn jirin hadda kadib aad samaysid xilligaa rabtid ee shaqee xilligaa rabtid jaam ahow waa isla fiirin doonaa morning routine-ku waajib weeye qodobka labaad marka haddii u gudubno waa xilliyada shaqada oo ayaduna muhiimadeeda gaarka ah leh laba ayaan u kala saaranaa marka laga hadlayo xilliyada shaqada ama trading time-ka ama jadwalka shaqada jadwal maalmeedka traderska ayaan laba u kala saaranaa dad ayaa iyagu waxay yihiin full time traders oo iyagu maalintii waqti fiican ay hayaan dadna waa part time traders oo waqti ama way shaqeeyaan ama iskuul bay aadaan ama masuuliyado kale ayaa saaran marka waxaan rabaa scenaariyooyin inaan siiyo haddii aad full time traderada aad ka mid tahay sidee ayaa u shaqayn lahayd haddaa part time trader tahayna intee scenario kala duwan midkood ayaad iska dhex arki kartaa full time traderska haddii aynu ku horumarno waxaan kala saaraynaa jadwal ayaan u dejinay full time trader haddaa tahay waxa ugu weyn oo laga cararaya mar labaad waxa weeye qofku in uusan iska fadhiyin computerka morning routine horta inaad samaysid khasab waaye haddaa full time trader tahay full time trader waxaa noqon kara qofka forex-ka mooye howlo kale aan qaban baashaal iyo filin la daawado iyo asxaab lala kaftama iyo habeen social media lagu saamaleelaya waxaas anaga ma xisaabsanayno qof kasta oo forex-ka ma wax kale aan qaban waa full time trader marka haddaa full time trader tahay waxaa laga yaabaa in adiga laftirkaaga suuqa hobby kaa noqday because of jadwal xumadaada marka isku day jadwalkan u eeg amaba kan laftirkiisa inaad qaadatid haddii aad tahay waxa loo yaqaano full time trader morning routine-kii samee hadda aan kasoo sheekeynay oo subaxdii isku day 5 subaxnimo inaad soo jeedid haddii aad full time trader tahay sirta ugu weyn aan kuu sheegaya waxay tahay fiid seexo suuqana aroorusoo kala dad badan ayaa dhibkii haystay oo dhan intaan kaliya ay xalis fiid seexo ugu dambeyn 10 habeenimo isoo kula gaarin si aad 5 subaxnimo soo jeedid soo 5 subaxnimo markaa soo jeedid 5 ilaa 7 subaxnimo 2 saacadood adigu morning routine-kaaga geli haddii aad tahay mid ka mid ah dadka full time traderska morning routine halkaan kaga hadlayno waa kii hadda aan soo sheegnay wax kale ma okay kadib trading session-ka kuwaad 2 session ayaa trade gareynaysaa trading session-ka kuwaad wuxuu ku bilaabanayaa 7 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo so from 7 am ilaa 12 pm waxaa la rabaa inaadan ka dulkicin computerka inaad mobilka silent iska gelisid inaad dadka guriga kula jooga u sheegtid inaadan kicin inaadan bad kala gelin inaadan adeeg doonin inaadan mashquulin inaadan waxba kala qaban 7 ilaa 12 maxaa kamid xalaqa qabanaysid fiiri trading plan-kaaga si aad u ogaatid heerka uu ku marayo safarkaaga trading plan baa ku degsan soo ma oo trading journal-kan waa kaga hadli doonaa trading plan ku degsan maanta akoonkaaga $200 maraya waqti intee leeg baa la rabaa maxaa la rabaa inaad ku dirtid fiiri trading management-gaaga maanta ka soo qoro trading plan-kaaga dhexdiisa macnaha maalintan cayiman ee maanta ah trading plan-ka maanta ku socon lahayd trading plan-ka ka soo dhex fiirso maxaa kaloo la sameynayaa xilliga shaqada setup-iska shalay ku dhisnaa tirtir oo dib u dhis macnaha dib u diyaarsa tabyadii shalay ku dhisnaa sideedii aysan sii ahaan sababtoo ah suuqu marmarka qaarkood sawirka ayaa isbedelaya laakiin live ayuu u dhacayaa sawirka isbedelayo kuma muuqanayso haddii cariijimo hore kuugu sawiran yihiin marka caado ka dhiga subax walba inaad dib u samaysid okay dib u diyaari setup-kaaga si xogta cusub ee suuqa aysan kaaga qarsamin haye fursadaha suuqa ee yimaado qaado adiga oo raacaya waxa uu ku farayo trading plan-kaaga macnaha xilliga fursadda la gelayo waa xilliga shaqada adoo magaalada joogaya adoo hawl kale ku jiraya lama rabo haddana trading journal-kaaga si joogto ah ugu kaydi waxa aad samaynaysid inta aad shaqada ku jirtid saacadaha shaqada aad ku jirtid trading plan-kaagii ayaa waa 7 ilaa 12 waa 5 hour baa ku jira soo maaha 5 hour-kaas maxaa qabanaysaa 1 hour baa kugu filan trade inaad diyaariside trading journal-kaad baad buuxinaysaa backtesting baad samaynaysaa fursadaha suuqa yimaadaa furaysaa kuwa xiraysaa marka kuwa furtid oo kuwa kalena ay TB ku dhaceen ama SL ku dhaceen trading plan-ka ku noqonaysaa risk management-gaaga fiirinaysaa ma gaara withdrawal oo money management ma samayn lahaa you are busy with your business waqtigan
waqtiga labaad marka 12 duurnimo marka la gaaro waa inaad break qaadatid. Take a break. Ka kac computerka 12 duurnimo ilaa 2 iyo bar waa 2 saac iyo bar. 2 saac iyo barka haddii aad full time trader tahay weeye ka kac computerka. Hawlahaaga kale ee aad saaka qoratay halkan geli. ila saaka markii aad morning routine-kaaga joogtay qorshayaal baad qoratay. Sooma saaka qorshayaal baad qoratay, hadafyaha qoratay marka morning routine-kaaga joogtay. Hadafyadii saaka aad qoratay waqti lagu qabtaa loo baahan yahay, la iskama qoreen. Waqtiyadii hadafkii macnaa waqtigii la qaban lahaa hadeer oo kala weeye. 12 ilaa 2 iyo bar oo kale hadaa qof soo booqan lahayd, hadaa adeeg guriga u doon lahayd, hadaa mashruucyo kala qaban lahayd, hadii kale aadan waqti u gaara u goyn waqtiga trade-ki ka soo dhaxgelayaan. Ka bax guriga iyo meesha aad ku shaqeynaysay. Hadii aadan ahayn dadka seexda waxa la yiraahdo guriga ka bax, banaanka aad, shaah soo cab, asxaabta waqti la soo qaada daarabtid, waxa la kala sameey. Mas'uuliyadaha kale ee ku yaala ku mashquul hooyaa tahay, ilmaha waxay ka sugayaan hawlina u qabatid, aabba tahay, guriga iyo mas'uuliyadaha ku saarnaan kara, roommate baa tahay, dad baa isla degantihiin oo waajibaad gaar ah ku saaran inaad ama musqusha hagaajisid ama guriga wax ka hagaajisid ama doorkaagii bay ahayd hawlaha qaybtooda inaad qabatid. Soo maaha whatever it is mas'uuliyadaha ku gaarka xilligan geli. Dad badan oo arintan intaysan samayn ay hadhow ku soo furantay ay arintan caawinaysa. Ma rabtaa in xilliga trading-ka aan laga soo dhaxgelin hawlaha kale ee trading-ka ka soo dhaxgeli kara waqti u gaar ah u samee. kadib 2 iyo bar shaqada ku soo laabo oo maxaa helaysaa trading session number 2. session-kaaga labaad ayaad galaysaa. session-kaaga labaad wuxuu ka bilaabanayaa 2 iyo bar duhurnimo ilaa 6 maqribnimo. maxaad sameynaysaa intii aad halkan samaysay ayaa sameynaysaa session-ka. sidoo kale maxaad sameynaysaa hadii ku fiiri trading plan-kaaga si aad u ogaatid heerka uu ku marayo safarkaaga trading-ka. bar walba trading plan-ka dib ugu noqo. trading plan-ka dib waanigi video-gan midkii ka horeeyay ka soo duubayo by now waxa laga rabaa inaad already trading plan haystid. Okay, trading management-gaaga maanta ka soo qoro trading plan-kaaga dhexdiisa. macnaha maanta trade-yada si uu maamulaya maanta lotkaygu intee leeyahay. maanta saan lotkaygu u fiiriyo waxaan tagayaa balance-ga account-kaygu uu marayo oo xagee igu dhex qoran trading plan-ku igu dhex qoran yahay. Okay, setup-iski shalay ku diyaarsanaa tirtir haddii saaka lacagaha qaybtooda aadan fursad u helin hadda tirtir. Okay, dib u diyaari setup-iskaaga si xogta cusub ee suuqa aysan kaaga qarsoomin. waa chance labaad. maxaa haystaa meesha 2 iyo bar ilaa 6 bar waa ugu yaraan 4 saac bar ma umaleynaya inay tahay mise 3 saac bar aan ee fursadaha suuqa ay yimaada qaado. xilligan waa window labaad New York Session Traders ka qayb qaadan kartid. Trading journal-kaaga si joogto ah ugu kaydi waxa aad sameynaysid inta aad shaqada ku jirtid. And then 6 PM marka la gaaro it's time for you in a break labaad qaad. Take another break. sababtoo ah haddii aadan break halkan qaadan way kugu adkaan doontaa inaad subaxdii adoo fresh soo laabatid. So 6 PM ilaa 9 PM waa another 3 hours. Take a break. dhalinyarada shukaansiga ka hadlaysa macna shukaansiga waqti waan weyn dhahay this is your window. shukaansigaaga aad taleefanadaada ku hadal. haddii aad family kala fogtiin family-kaaga wax maxaan ku iraadaayay ha ku mashquulin wax maala yacni laakiin arrintaas ka ilaali. haddii ciyaaraha xilliga ku beegin iska daawa direct laakiin ha ku mashquulin waxyaala maala yacni laakiin intii kala samee hawlaha kale ee aad ka qoratay halkan geli ka bax guriga iyo meesha aad ku shaqaysanaysid mas'uuliyadaha kale ee ku yaala ku mashquul. jadwalka noocan qofka sameeya ee subaxdii markuu soo kaco 5 subaxnimo ilaa 7 subaxnimo morning routine sameeya. kadibna 7 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo training session-kiisa koowaad kala. kadib waxa la yiraahdaa break qaata inta u dhaxaysa 12 duhurnimo ilaa 2 iyo bar duhurnimo. kadib trading session-kiisa labaad soo laabto 2 duhurnimo ilaa 6 maqribnimo gala. kadib break-giisa qaata oo 6 maqribnimo ilaa 9ka break-giisa qaata. kadib waxaad sameyn kartaa 9ka guriga ku soo noqo 9ka ilaa 9ka iyo bar waxaad sameyn kartaa wax loo yaqaano evening routine oo aynu ka soo hadli doono. hasaate intaanan evening routine-ka u gudbin aynu isla fiirino kani wuxuu ahaa hadda full time traders soo maaha part time traders ka isla fiirino ama dadka mashquulsan ee shaqeeya. marka dadka shaqeeya runtii way ka duruuf xun yihiin ama way ka magaranaysaa chance-ka dadka full time traders ka ay haystaan ma haystaan. mid waa laga wada siman yahay oo waxa la yiraahdo inaad morning routine sameysaan. laakiin meesha waxaan qaadanaa scenario waa xaalado kala duwan baan ku qiimeynaa. xaaladaha midkood in iska dhaxaragto. tusaale kale scenario number 1 hadaynu fiirino waa dadka gelinka hore shaqeeya. dadka gelinka hore firaaqada haya. haddii aad waxa la yiraahdo galabtii aad og tahay inaad shaqo aadaysid ama galabtii aad og tahay inaad mashquulaysid waxa la yiraahdo 7 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo suuqan waqtigiisa. wixii hadda aan ka soo hadlinay samee. fiiri trading plan-kaaga maalintaas trade management-gaaga ku laabo setup-kii shalay dib u tirtir dib u qor haddana kuwa maanta fursadaha suuqa qaado trading journal-kaaga buuxi.
shaqadan goormaa qabanaysaa haddii aad tahay dadka gelinka dambe shaqaynaya iyo habeenkii shaqaynaya gelinka hore windowda ugu fiican waa tan aad ku beegi kartid waxa la diidaya waxa weeye inaad tirahdaan waa shaqeeyaayo xilli aan suuqa ku falanqeeya ma helo haddaad shaqaysid shaqada aad labada duurnimo aadaysid oo galabta bilaabanaysa subaxdiina xagee aadaysa scenario number 2 aan fiirino scenario number 2 waa dadka gelinka hore shaqeeya oo gelinka dambe firaaqada haya haddaa gelinka hore marka mashquulsanayd oo saaka 6 bar aad soo shaqo gashay oo aad maanta 1 ama 12 bar duurnimo shaqada ka rawaxday oo gelinka dambe lagu joogo labada duhurnimo ilaa 8 fiidnimo ayaad shaqaynaysaa adigu oo waad ka duwan tahay dadkii full time traderska ahaayo windowgan yarka maadaama haysatid labada ilaa 8 u kala kicin ila gelinka horena waa mashquulsanayd oo shaqo ama iskuul ama mas'uuliyado kala ku saarnaa waxa la yiraahdo channelskaagu iska yara aan fiirino scenaariyada saddexaad marka intii kala qabanaysaa labada duurnimo ilaa 8 fiidnimo intii ay qabanayeen qolyahan intii ay qabanayeen full time traders ayaa qabanaysaa oo ah trading plan-kaaga inaad dib ugu noqotid money management-gaaga iyo waxa la yiraahdo trade management-gaaga inaad fiirisid setup-iska shilinaas ka tirtirtid setup-iska inaad dib u diyaarisid fursadaha suuqa yimaada waqtigan fursadaha yimaada inaad gashid sababtoo ah aniga waxaan diyaarinayaa traders kala kaliya fursada iyagu dhiseen sheekooyinka la rabo inaynu soo afjarno waxa kamid ah groupka maxaa lagu hadlayaa ambal fiiriya lama rabo it's different hadii trade aad si diyaarsatay oo alarm kugu xirnaa ay ku soo dhacaan adoo shaqada ama meel kale jooga waa qaadan kartaa mid iyo labo laakiin adoo si diyaarsatay laakiin waxa la diiday waxa weeye inaad tiraahdo anigu waa mashquulsanayo hawlo kale aan ku jiraayo fursadaha macallinku soo diray iyo kuwa ardaydu soo diraan baan ka faa'iideysanaya suuqa China uma hayo de markaas oo ku soo lugooda suuqa 2 sano 3 sano 4 sano oo si qaab daran kaaga dhamaata waa kaaga bixi doona hadhowna laguma maqashin doona forex waa ku kacaysa laakiin waxa la doonay wax weyn inaad tiraahdeed war wax kasta oo macallinku u yaqaano waa inaan aqaano trade kasta oo macallinku dhisi karo waa inaan dhisi karo si aad marka levelka u gaartid oo aad lacag suuqa uga samaysid waa inaan waqti cayiman suuqan u goysid waa ku sheegay haddii aad gelinka dambe shaqaysid gelinka hore shaqee gelinka hore forex ka sii haddaa gelinka hore mashquulsan tahay gelinka dambe forex ka sii haddaa labada gelinba mashquulsan tahay aan ka warramo aroorta hore dad baa chance siin kara haddii tusaale ahaan intaad 6 aroornimo intaad shaqo gashid aad 6 fiidnimo ka soo baxaysid subaxdii xilli hore kac 3 bar aroornimo kac ma kacday kadib 4 am soo kac suuqa 4 am ilaa 6 am baa kugu filan waxaan aqaanaa dhalinyaro shaqaysa oo muqdisho joogta oo windowga kaliya ka faa'iideysta oo taaganba macallin markaan full time trader-ka ahaa iminkan ka faa'iido badana oo wuxuu ku leeyahay waqti baa igu socda waa la ilaashanayaa waxa la yiraahdo waxaan ogahay haddii 4 ilaa 6 aan iska dayaco maanta oo dhan inaan trade heli doonin baan ogahay buu ku leeyahay muxuu marka qofkaas sameeyay bilaabay in uusan suuqa ku saqajaamin oo ku soo laalaaban xilliyada kale oo xilliga u gooyay uu galo marka 4 subaxnimo ilaa 6 subaxnimo maxaa sameynaysaa fiiri trading plan-kaaga maalintaas si aad ogaato heerku marayo meesha baashka bilaabato halkaas trading plan aad ku qornayn video kan ka horeeyo ku noqo trading plan soo qoro kadib trade management-gaaga maanta maalin walba trade management u gaar ayaa jira trading plan-ka dhexdiisa ka soo fiiri setup-iska shalay ku diyaarsana iska tirtir dib u diyaari setup-iskaaga fursadaha suuqa ee windowdan intay jirta la helo qaado trading journal-kaagana xilliga ugu fiican ee qorayso waa 2 hour-kan 6 am qubayso shaqadaada isku diyaari 6 waaba joogtaa meesha ka shaqeynaysay si marka 4 am u soo kacdid lama rabo inaad 11 habeenimo seexatid ama 5 saac habeenimo waa inaad 8 bar hurdid because hadaadan hurdo kugu filan aadan helin 4 am to 6 am ma shaqeyn kartid scenario-da afraad waa qofka aysan u suurtagalayn 4 am inuu soo kaco muxuu haystaa dad baa duhurkii window hela waxa laga yaabaa shaqada ay ka shaqeeyaan inay aroortii 6 iyagu furaano 5 guriga ka soo baxaan soo waxay sameyn karaan inay duhurkii shaqeeyaan duhurkii window ugu jiri karto waxay noqon kartaa 1 duhurnimo ilaa 3 duhurnimo 1 pm ilaa 3 pm intii kala samee haddii aadan aroortii 4 ilaa 6 chance helayn oo aadan subaxdii 7 ilaa 12 helayn oo aadan galabtii 12 ilaa 8 aadan helayn oo windowga yarka 1 ilaa 3 haysid waa in ay qoran tahay oo buug iyo qalin ku xariiqan tahay oo saaka markaa morning routine-kaaga degsanaysa aad soo qorata kadibna 1 ilaa 3 aad ku mintidid inaad fursadaha dhistid inaad trade-yada diyaarsid hadda aad waxa sameyn kartaa dad badan baa wax ku shaqeeyaan kombiyuutarro trade-yada aad soo diyaarsatay markay intriga yimaadaan hadda waa furin kartaa simple as that ma fahamsa si lamida kuwii aan ka soo sheekeynay wixii oo kala sameynaysa trading plan-kaaga fiiri maalintaas trade management-ga oo baahanta fiiri setup-iska hore kugu diyaarsana iska tirtir setup-iska hadii ku diyaari fursadaha suuqa ee markaa yimaada qaado trading journal-kaagana qor oo wax ku buuxi scenario-da shanaad ee u dambaysa aynu isla eegno iyadana
waa dadka habeenkii fursad helaya. Okay, qof baa laga yaabaa inuusan duurkii fursad heleen oo aroortii hore fursad heleen oo gelinka dambe fursad heleen oo gelinka hore fursad heleen. janna gale habeenkii ayaad fursad heli kartaa. habeenkii windowda ku jirta waa 9 fiidnimo oo qofka guriga yimaada ilaa 11 fiidnimo oo qofka subaxdii 6 kici doona 6 markuu kacana duhurkii aroortii uu shaqeyn doona duhurkii uu shaqeyn doona galabtii uu shaqeyn doona 8 iyo bar meelahaas ku soo baxaa shaqada 9 marka guriga timaad qubayso 9 ilaa 11 habeenimo every night u fariiso itiyo kala samee fiiri training plan-kaaga meeshuu marayo fiiri trade management-kaaga maalintaas adoo kasoo qoranaya training plan-ka dhexdiisa setup-iska ugu diyaarsanaa iska tirtir dib u diyaar setup-yadaada fursadaha suuqa ee yimaada adiga oo raacaya wax qaada macnaha adiga oo raacaya wax ku faraya training plan-kaaga trading journal-kaaga dib u qor. marka qofku hadduu full time trader yahay waan kasoo hadalnay way fududahay haddii laakiin aad part time trader tahay waxa aad isku qaadaysid isku camimaysid oo jamaca ka dhigaysid iska daaniyo ama gabarya maxaad samaysaa bedelkeeda war anigu waa shaqeeyaaye jadwalkaaga de 4 saac baa haystaa 4 saac waa la garanayaa mid walba meesha ku baxday qor kadib waqtiyadan midkood baa ku soo baxaya. xaaladda kuwaad maxay noqon kartaa inaad gelinka hore forex ka siisid maadaama gelinka dambe iyo duhurkii iyo habeenkii iyo aroortiiba aysan ku suurta geli karin. xaaladda labaad maxay noqonaysaa inaad gelinka dambe fursad siisid maadaama gelinka hore iyo aroortii iyo duhurkii iyo habeenkii aad fursad heli karin. xaaladda saddexaad maxay noqonaysaa inaad aroorta hore kaliya windowda haystid oo 4 subaxnimo ilaa 6 haystid. xaaladda afraad maxay noqonaysaa inaad duhurkii kaliya chance yar haysatid oo 1 duhurnimo ilaa 3 galabnimo inta u dhaxaysa inaad shaqada laga fasaxo oo chance ka yarka ka faa'iideysan kartid. qolada u dambeysana waxa weeye habeenkii. aritaan midaad tahayba waxaa laga rabaa ku khasban tahay in aad qoratid xilli shaqo oo lagu og yahay oo aan adiga ku koobnayn oo lagaala xisaabtamo. sababtoo ah markaad samaystid xilli shaqo markaas ayaad forex-ka ka mira dhalin kartaa. markaas ayaa jadwalka qaybihiisa kala tagi karnaa. طبعا كان فول تايم كواس سو عرنay isaga kan full time ka ah wara soo sharaxnay kan part time ka ahna iminka soo sharaxnay labadan waqti midka labadan qof midka aad tahay adiga garanaya macalin full timer baan hayo saacadaha shaqada waan kula socodsiinaya soo dheh ama anu part time baan hayo xiliyadaas part time ka chance u helaa soo dheh warkaas waa cadiya Soomaa waa hagaag hadii anu ku socono marka training routine keena waxa la yiraahdo morning routine ka waa ka soo hadalnay jadwalka shaqada waa ka soo hadalnay maxay noo haray waxay noo haray trading journal oo muhiimada gaarka ah leh. trading journal-ka waa soo koobnay ilaa xad waa koobnay sababtoo wixii inay balaartaan lama rabo waxaa la rabaa wixii inuu noqdo wax doable ah oo qofku markuu videoga dhameeyo isaguna gacanta ku qori karo samayn karo. trading journal-ka laba waxyaalood baynu ku qoraynaa maalin walba every day. kow waxaynu ku qoraynaa setup-yadeena maalinkaas iyo tradeskeena. labana waxaan ku qoraynaa daily trading plan-keena. simple as that. qofku marka setup-yada uu suuqa kala kulmayo kuwa aad diyaarisay ee intriga yeesha kuwan intriga yeelan kulli waxa la doonayaa inay ku qoran yihiin oo setup-skana waa taqaanaan line up baynu leenahay oo garanaysaan oo euro USD oo lower time frame iyo higher time frame ah GBP USD lower time frame higher time frame ah USD CHF lower time frame higher time frame ah iyo substitutionskeena ama lacagaha marka saddexdan line up ka ah marka wax ka weyn lacagaha ka faa'iideysana waa taqaanaan USD JPY USD CAD AUD USD NCD USD GBP JPY GBP CAD Euro CAD Euro JPY CHF JPY kuwan mid walba qor tradeska laga helay hadii trade laga helay soo diyaari oo meesha soo geli indexyada sidoo kale soo qor every day indexyada update garee DX waa maxay leedahay bonk soo eegay euro soo eegtay CHF soo eegtay JPY soo eegtay CAD soo eegtay AUD maxaa ka soo kordhay NCD maxaa ka soo kordhay. marka laga hadlayo setups and trades mawduuceedu uu kooban yahay. trading journal-kaaga qaybta setups-ka marka aad qoraysid maxaa euro USD iska bedelay shalay markaan fadhiyay xilliga shaqada la joogay iyo maanta maxaa iska bedelay. sidoo kale hadii aad notion isticmaalaysid ku kaydso oo qaabkaan oo kale u nidaamso waa garateen Soomaa. marka trading journal qaybskooda waa inaad setup-ska iyo tradeska aad qortid. qaybta labaadna waa inaad trading plan ka qortid your daily trading plan ayaynu raacnay. haddaba daily trading plan-ka wuxuu noqonayaa labadii aynu ka soo hadalnay oo ahaa trading goals and risk management iyo money management. kuwa adiga ku gaara waa inay halkan kugu qoran yihiin oo every day aad update karaysid. maanta waxaad dhihi kartaa waa arbaco waxaad dhihi kartaa waa 29 Agosto halkaasi waxay marayaan waxaan doonayaa inaan sameeyo trading goals and risk management-ga aad u baahan tahay qor ma akoon $100 haysta ma akoon $10,000 haysta ma akoon $500 haysta ma akoon $1,000 haysta ma akoon $20,000 haysta ma akoon $20,000 haysta meesha lagu qorayo
trading goals and risk management aynu ka soo hadalna meesha lagu qorayo waa trading journalka dhexdiisa. money management aan ka soo hadalnay ee iyaduna levels kala hayd ma level 1 baa joogtaa ma level 2 baa joogtaa ma level 3 baa joogtaa iyadana aynu ka soo hadalnay iyana meesha lagu qorayo oo levelska hadba midka aad joogto lagu qorayo waxa weeye waa trading journalkaaga. marka trading routine marka la joogo qaybta trading journalka labadan waxyaalood aynu ku qoranaa waxaanu ku qoranaa setups and tradeskaagii sidoo kale waxaanu ku qoranaa your daily trading plankaagii oo ahaa waxaanu ka soo hadalnay oo iminka markaynu jadwalka dejinaynay oo dadka full time traderska ay part time traderska jadwalkooda markaynu ka hadlaynay waxaa ku jirtay qodob ah xilliga shaqada lagu jiro in trading journalkaaga wax lagu qoro saacad 2 saac maalintaada ka mid ah everyday trading journalkaaga joogta oo waxaad qoraysaa setup-yada trade-yada suuqa kala kulantay baad update gareynaysaa. haddii aadan waxba qoran waxaa tahay qof aan history lahayn. qof aan history lahaynna future ma yeesho. simple as that. qof aan history lahayn future ma yeesho. haddaadan aqoon wixii shalay aad la kulantay biri waxaa raadisid ma garanaysid. same mistake baa kugu soo laalaabanaya. same mistake baa maalin walba dhinac kaa gelaya. wayla fahamtay soo ma? marka trading routine keena hadii wax la yiraahdo qodobka ugu dambeeya fiirino morning routine waa ka soo hadalnay horta jadwalka shaqada waa ka soo hadalnay trading journal waa ka soo hadalnay qodobka ugu dambeeya waxa weeye evening routine. evening routine ku si waxa weeye waa caado dhaqameed sidii team morning routine oo kala ah oo la doonayo feedkii 15-20 daqiiqo feedkaaga inaad isla xisaabtantid. waa hagaag evening routine ka waxba ku daahimeeno saddex qodob oo fudud oo basiid ah ayaan ku soo koobaynaa. qodobkooda waxa weeye isla xisaabtan samee adigu waa garta dib ugu noqo wixii aad taaka qoratay oo fiiri inaad samaysay. saaka markaad morning routine ka qoranaysay hadafyaa qoratay 24 hours kaga plan gareysay habeenkii intaada seexan 20 daqiiqo jaanis dib isku sii hadii kale wixii dhan hal bacaad lagu leeyahay noqonaya. okay tick saar hadafyadii aad maanta xaqiijisay wixii maanta ku hirgalay tick saar oo inaad hoosta ka xariiqdid waxay ka caawinaysaa psychology ahaan bay ku caawinaysaa inaadan biri ka caagsinna wax cusub qortid. ugu dambeyn maxaa sameynaysaa marka isla xisaabtamaysid qor oo isxasuusi waxyaalihii maanta kaa khaldamay. waxaa go'aansatay meel hiblaaye inaadan booqan ama waxyaalo dib ku keen inaadan sameyn. haddii aadan ka xisaabtamin oo aadan ku baraarugin khalad aad ka cararaysa inaad saaka gashay biri buu kuu dhuuman karaa mar labaad. marka evening routine-kaaga marka la joogo waxyaalaha la qabanaya waxaa ka mid ah isla xisaabtan. waxyaalaha kale la qabanaya waxaa ka mid ah goobtaada shaqada oo aad hagaajisid. miiskii kursiga ku shaqaynaysid qolkaaga hurdada ku dhex shaqaynaysid meesha aad ku shaqaynaysid hagaaji. arrintaana waa arrin weyn oo psychology ah. meeshii aad maanta ku shaqaynaysid kala hagaaji. saacadaada haddii miiska saarneed ka qaad okyaalahaaga meesha ka qaado caagada biyaha ku cabaysa kala durdurkii maxaan ku yidhahdaa buugga maanta o dhan wax ku qorqorayso isku laab dareen inay maalintii dhammaatay. kadib maxaa lagu yidhi sawiro oo qor sababta aad berri aroor u kacayso 1 minute bay qaadan kartaa. sawiro adoo berri soo kacay sida u weysaysan doontid sida salaada u tukan doontid sida mar labaad morning routine u qori doontid it takes less than a minute 30 seconds bay qaadataa and it will help you. haddaba labadan qodob oo la sameeyo waxay kaa caawinaysaa in aad seexatid. sidaan oo la sameeyo inaad seexatid ayay fududaynaysaa. miyaadan arag qof maanta oo dhan markuu sariirta tago hurta kasoo dhici la'da sababtoo ah matoorkii lama damin. qodobadan oo la sameeyo meesha ku shaqaynayso la hagaajiyo qalinkii oo furkiisa la geliyo buugiyo la isku laalaabo adoo subaxdii soo kacayo la sawirto waxyaalahaas oo la sameeyo waxay kuu diyaarinaysaa in aad gamacdid markaad sariirta timaadid maalin dheer oo shaqo ku jidhay. ugu dambeyn qodobka saddexaad ee evening routine-kaaga la sameynayo waxaa ka mid ah mahadcelin ku khati. qor oo ka mahadceli in maalintaada ay nabad kuugu dhammaatay. alxamdulilah ilaahow adaa maad iskale maalin qurux badan i dhammaystiray. fahmaysaa ka mahadceli hadafyadii kuu dhammaaday iyo kuwa aan kuu dhammaanba. waxaan ku faraxsanahay oo ka mahadcelinaya inuu hadafka ii dhammaaday. waxaan ku faraxsanahay sidoo kale oo ka mahadcelinaya hadafkaas oo aan lahaa in wax yar ka dhiman yihiin baan ku faraxsanahay. inaan biri samayn doonaan ku faraxsanahay dheh. stiil ku sii mahadceli. ka mahadceli wanaagyada kale ee noloshaada ku jiro eed haysato. yaysan ku soo marin habeen aad seexatid oo aadan ka mahadcelin. dadka waaweyn ee reer galbeedka ah ee billions of dollars sameeya sirtooda oo dhan waxay ku sheegeen inay mahadcelintaas sameeyaan. af ingiriiska waxay ku dhahaan affirmations wax kale maaha. waa inaad hadafyadaada ku celcelisid waa inaad waxa weeye waxyaalaha wanaagsan oo haysto ku mahadcelisid sababtoo ilaahay baa ku yiri haddaad ii mahadceliso waan kuu siyaadinayaa Soomaaliya. marka trade-yada saaka aad dhistay haddii asal kaaga wada dhaceen inaad trade dhisi kartid ka mahadceli biri asal kaaga dhici mayaan. haddaba waxa la yiraahdo evening routine-kaaga
mahadcelin samee goobtaada maanta joogtay oo dhan kala hagaajisaa beri aroor u kacdid sidoo kale isla xisaabtan samee saddexdan waxaa la isku yiraahdaa evening routine waxayna ka mid yihiin trading routine-keena okay haddaba trading routine-keena sida aynu sheegnay wuxuu leeyahay morning routine oo jadwal aad u qurux badan saacad 2 saac bay kugu qaadan kartaa sidoo kale wuxuu leeyahay qayb la yiraahdo trading time ama jadwalka shaqada oo aan dhowr scenario u kala qaybinay dad full time tradersna qaab baan u dhisnay dadka part time traderskana qaab baan u dhisnay trading journal-ka oo isagana aan qeexnay waxyaalaha lagu qorayo maalin walba iyo in maalin walba uu update kaaga baahan yahay iyo sidoo kale evening routine oo isaguna ah waxa la yiraahdo wax aad 20 ilaa 15 daqiiqo walba aad sameyn kartid haddaba qodobadaani waxay dhammaystirayaan trading plan-keenii aynu ka soo hadalnay okay haddii aad ila soo socotay oo istaraatiijiyadana soo daawatay trading plan-keena qaybta ugu muhiimsan waa istaraatiijiyadda qaybta labaad ee trading plan-keenuna waa trade management iyo risk management iyo trading goals iyo money management aan kaga hadalnay qaybtan saddexaadna waa waxa loo yaqaan trading routine saddexdan qodob ayaa waxa la isku yiraahdaa marka saddexagalka guusha ee suuqa forex qofku hadduusan istaraatiijiyad haysan waa cheese laakiin trade management iyo money management iyo wax la yiraahdo trading routine uu haysto laakiin hadduu istaraatiijiyad cajiib haysto sidoo kalena trading routine fiican haysto oo discipline-kiisu fiican yahay laakiin trade management uu haysan isagana waxba ka khaldan dhinaca kalena hadduu qofku trading system fiican haysto trade management fiican haysto laakiin trading routine uusan haysan maalin iyo habeen wuxuu ku dhex jiraa wax aan loo dirsan oo aan shaqadiisa ahayn ayuu ku dhex jiraa marka saddexdan waa miisaanka la rabo maanta kadib inaad iska dhex fiirisaan mid walbana waxa aynu ka sheegnay iyo waxa aynu ka xusnay waa bilow waxa aynu ka xusnay mid walba qaab aad ku fahmi kartid oo si adiga personal ku ah u dhisan kartid wax iyadoo of course istaraatiijiyada waynu isla qeexnay fiidiyoynu ka sameynay inta qaybood qabsto waa ka hadalnay trade management waynu isla qeexnay fiidiyoynu ka sameynay iminkana trading routine-ki waynaga meel saarnay saddexdan haddii aad ila fahamtay marka 2 bilood 3 bilood oo chance naftaada si ciladaha kale oo aan dhalinyarada ku arko waxaa ka mid ah qofku markuu trade routine-kan arko 3 beri buu isku dayayaa 3 beri kadib uu shaqayn waayaysaa wuxuu leeyahay inuu sheekadan iyo it's not for me way shaqayn weyda no give it a time bil 2 bilood 3 bilood sida adiga waxaa noqonaysaa adoo yiri ilmo yar oo hadda dhashay ayaa waxaan ka filanayaa inuu dhakhtar noqdo isla markiiba oo socodkiiba ma barane maba fariisan kare maba guurguuran kare iskuulba ma aadin xadaana ma aadin primary ma aadin secondary ma aadin xagee u wada marka naftaada waqti ku filan si beenna ha isku sheegin sababtoo inaad been isku sheegaysid inaad run isku sheegaysid adiga kaliya anigaan ku ogeyn asxaabta kale gurbiyada kula jirtaan ku ogeyn kuwa qolka kula degan baa ku ogeyn adiga iyo ilaahay unba is og inaad naftaada been ku maaweelinaysid iyo inaad xaqiiqo u sheegaysid naftaada xaqiiqada u sheeg meesha aad ku liidato qor ku celceli jilci caawimaad dalbo hala baqin inaad wax khaladid hala baqin inaad wax isku daydid waxaan rajaynayaa fideogaani inuu wax badan idinka caawin doono sida mida fideoyadii iyaga ka horeeya trading planka waxaan rajaynayaa koorsadan guud ee trading planka aynu ka hadlaynay inay runtii idiin fududayn doonto qaabkii aad suuqan guul la taaban karo uga gaari lahaydeen dhammaantiin waxayna leeyahay guuleysta allaha idin ilaaliyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu